maanta ay tahay taariikhda afarta bisha sanaad 2012 habeenimo shir degdeg golaha wasiirada iyo magaaladu isugu yeeray golaha wasiirada ay qolkii dilkii wasiirkeena qaaliga ahaa Cabbaas Siraaji wasiirkeena golaha guud waxaa kaloo laga hadlay warbixino laga dhageystay hay'adaha amniga baarista kuwa qolkii xalay dhacay kadib golaha wasiirada warbixin ka dhageysteen hay'adihii amniga iyo hay'adihii garsoorka sameeyey baaris la xiriirta qolkii xalay dhacay taasoo ay noo xaqiijiyeen in ilaa hadda 3 qof ay ku xiran yihiin qofkaas isaga baaristuna ay socoto warbixinadaas kadib golaha wasiiradu waxay ka doodeen sidii dowladdu ay tallaabada ugu adag ka qaadi lahayd arrintan iyada ah sidaas daraaddeed warbixinada la dhageystay kadib golaha wasiiradu waxay si wada ogola xilka qaadis ugu sameeyeen guddoonka guud ee qaranka waxaana si ku meel gaar ah u sii haynaya ku-xigeenka hantidoorka intaas kadib golaha wasiiradu waxay iyagana tacsi u direen qoyskii eheladii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geeridii ku timid Dr. Maxamed Jaamac Sifir horey u soo ahaan jiray ra'iisul wasaare dalka oo maanta ku geeriyooday magaalada New York ee dalka Mareykanka waxayna ilaa ugu bariyeen in jannadii loo waraabiyo qoyskii eheladii ummadda Soomaaliyeed ku tageen samri iyo iimaan ka siiyo